waxaan jeclahay hees kale oo waxa jirta haddii dhigta ruux la gooyo daloolkeedaan dhamaan dhig haddii la gooyo daloolkeedaan dhamaan aad iyo way jirtaa waxa sameeyay maxamed muumin ababe iyaduna way jirtay qisada heestaasi ayaan jecelahay aniga iyo daawadayaashu inay markii ugu horeysay aan wada daawano niyahow qisada lafteeda anigu maan haynin markii hore waay yani heesta qaadii maan hayn laakiin mar dambe waa ninka la yiraahdo ababe anigu Djibouti joogno iga sheekeeyay waay walow aan malaha dee أنا شعلين وواحد هرد وجورهم وعي يعني ميديا إن ما ركت قصة على جشة لكن هذا إحنا مثلاً إني بدي كسور كتير إن لا جشة يعني يروي نكشكين كرر واي هاستاسي نكلا لا بابا يشكي مرضى بيجشكي واي هاستن قف دواء هانو قدك واي دواء إن سكني كوقات أو بنلم بكل بيبي هاستا هيه أضواء قصة ما ركتي وحوي laba qof oo wax isku ah dadkeenu de ma aragtay wax isku ahaanshaha waxay noqon kartaa in abtidaayo kale waxay noqon kartaa in adeertaayo kale waxay noqon kartaa ehelkaaga dhow jacaylkuna wax jiro dadka u dhaxmara marka eriyadana markuu adeegsanayo haddana dhig hadii la gooyo daloolkeedaan dhamaan qalad baa gabadha xageeda isay kaga yimid haddana dhig hadii la gooyo daloolkeedaan dhamaanay anoo dhexdhexaadinaya dhacdada maanta iyo jacaylka dhig xumo ku qurmaayo dhiga ugu sharafad loo xilay yani hawshayga ka timi hadii aan ka aarsado ana nafsiyeedii laakiin waxa sameeyay haddana waa nabar adiga kugu yaalade adigina ehelka wixii kugu dhacay anigu igu dhacay wixii aad iyo aad waay marka inaan adigina de ka wax ku geysto de ku jawaab celiyo ma doonayo marka hadii waxaan kugu sameeyana wax aniga uu igu dhacay adu de waa iska wuxuu yiri la fageeliyaga la isku jabiyadeen wuxuu yiri duduubka ku qaado marka qiso waxay ahayd yar maaragtay reer Canada aba gabadh ay ehelino reer Djibouti hooyadii iyo aabihii baa deganaa Djibouti dadna gabadhii baa waxay odaygii islaantii baa xoogaa da noqday waalidka gabadhii baa waxay in abtidii ahayd baa wuxuu yiri si ay waalidka igu caawiso oo abtigeed baa dawal soo kaxay gurigooda la keenay gurigoodii soo degtay waxay ka warhaysay hooyadii aabihii waay dadna sidii loo wada hadlayay baa maaragtay taxriir jacayl ماشي ويكورن أبا كورن عانيه معبي شكله تعال اسكت بدش هي لبدو دي بقى مركا إن ده مستقبل يجور ده اسكت معاه في قارن ده برضو وحي هاي هي ده اللي فتيدو ده وحي شويل كله أي اللي السعودي وحدي لا لا قدرني احترام مباني وحي سلايدنا أبتيا يد بدنا كلا ولا هيدي الله أعلم لكن ده هستا ده إنه فسر دانته. واي. بدينا ويل كيس ده بيدور السعوديين ودشي كيسانين ضيقي بقى ماشي كبحي أو الانتهاء به ها هو يدي بايدنا ماشي كبحضي بس كده يجبر لي مركان وكحيستو. أنا مهرسدو وكحيستو إنها بتدي هاي. مدام كندي سو. مدام سو ها كندي دكنا. عادي. جبر لي مركا هو شيء دي قالي شو جبرنا يدون شعيل ويل كله. وهايسا. لا وضع. هاي. وكذا حياة. واي. waxweeye gabadhii waxa dhacday ninkii ay dees jeclaayeen iyaduna dees dhabtaa u jeclay way la tashatay ninkiina wuxuu yiri dhageyso laba meher ka horeeya ansax haye ya keenan horeysiinina kiisa wax ka jiraaba marka ma jiraan adu si dhanka u xidhay gabadhii haye arrinkii bay la qaadatay way ninkii dibadda joogay lacagtii uu soo dabariyay hawlihii gabadhii meherkii kale horeysiisay ninkii ay Djibouti wada joogay way kii kalena waa ku dhacay maalintii ku xigtay ninka hawshii dadaal buu ka galay gabadhii uu doonay inuu soo dhoofsado uu soo kaxeeyay markii uu wadankii ka soo dejiyay Canada ba airportku ka soo qaaday guri buu diyaarsaday qurux badan oo disleeyad ku caruus galaysaa gabadhii markuu airport ka soo qaaday gurigii keenay baa wax dhacday gabadhii uur bay leedahay 3 bilood haye yeesay wuxuu dhaceen oo run baa ku sheegay arrinkaas jira nin kalaana deel ma iskale meherkaagana kaasa ku horay kaaguna u dambeeyay ninka dhulka la soo yaraaday haye waxa la aliyo xiyaalo male waxba kuma samayn karo gabadhu waa ehelkii gobonimo sameeyay gurigii iyadoo diyaariyay gurigan iska deg hawlaha iyo waxaan kala shaqeynayaa sharciyadaadii waxa uu kala shaqeeyay si qurux badan buu hawlaheedii ugu dhameeyay ilaahiyadii ilmihii waa kala keenay
iyadoo de magaalada degan oo nabadu wuxuu haddana kala shaqeeyay ninkii ay isqabeen ilmaha yar u dhashay inuu process ula sameeyay gabadha sidii family-gu aanu kala lunano maaragtay wiilkii de ilmihiisa ama wadankay ugu keenay lahaa wiilkii baa hawshiisa ka shaqeeyay wiilkii buu haddana wadankii keenay iyada kala shaqeeyay gabadhii wadanku keenay qoyskiisa ku dhameystiran buu markaa yidhi nabadii ya isku keenay labadoodii isku keenay qoystee maaragtay qurux badan kamu caban waxana jira moodan wuxuu ku yidhi naabtidii wixii dhacay way dhaceen ya mar haddii saasi jirtana dee adigii qoyskaaga qurux badnaado wada jira waay markaa ninka hababa la idhaa buu la hadlay markuu hawshaas u dhan dhameeyey buu la hadlay ku yidhi niyow arrintaasaa jira saasaa igu dhacday inaan hadlo ma rabo inaan ka sheekeeyo arrinkaa ma rabo in la maqlo ma doonayo ya keliya waxaan doonayaa bal arrinkaa inaad wax ka tiraa sidaasaan anigana qisada markaa aan waxba laiiga sheegin aan ereyadun baan ka helay yacni say u socdaan heestii markay soo baxday buu ninkii ku yidhi ninkii baa soo hadlay waar heestii waan ku dawoobay buu yidhi niyow heestii qisadii way iga maydhay waan ku dawoobay alxamdulilah ababa markaa mar dambe aniga sheekada iga sheekeyn doonaayo xataa ninkii iska ayaa barwiile hadashiiyey waan isbaranayo maasha allah imika qoys buu iska leeyahay reer buu leeyahay qurux badan yahay isaga laftiisa maasha allah waxaa la odhan karaa wuxuu sameeyey wax qurux badan dadkoo dhan lagama helo in qof garashada dadkoo dhan lagama helo ninkaasi waa gobbaan ereyada heesta bal anaga daawadayaasha iyo qisada wuxuu yidhi waxaan dadka kaa dhaweystay maxaan dhibta kaa ilaashay maxaan qalbigaaga dhowray inaan qayrkaa ku dhaafsho maxaan isku dhiirigeliyey adoo dhayarsada dantayda maxaan taada ku dhameeyey haddii la isdhaami waayo wanaag lama kala dhaxleene haddii la isdhaami waayo wanaag lama kala dhaxleene anoo dhexdhexaadinaya dhacdada maantiya jacaylka dhegxumo kuu quuri maaye dhigaa ugu sharaf badnow saasay u dhacaysa aada iyo aad beejka labaadna siduu dhacay wuxuu yidhi maxaan ku dhadhabay jacaylka maxaan kugu dheel halaabay maxaan dhabta kugu heesay maxaan caashaqa dhankayga ka jiray dhaxan uga timaada anoo kugu dhaadanaya dhaliila maxaad isaartay haddana dheg haddii la gooyo daroolkeedaan dhammaane anoo dhexdhexaadinaya dhacdada maantiya jacaylka dhegxumo kuu quuri maaye dhigaa ugu sharaf badnow aada iyo aad qisada iyo marka heesta lasla eego waa la isku beego sax aada u weyn ababa waa nin abwaanu ilaahay hibo dee aada u fara badan siiyey mar waa la xamiiste mar waa abwaan waa nin talent dhamaystiran maasha allah mar waa maad aragtay waa nin ciidan oo maaragtay ciidanka Djibouti meel sare ka shaqeeya waa nin aqoon-yahana adu waa nin talentkiisa ilaahay dhamaystiray aad u salaamay isagii qoyskiisaba maxamed muumin ababe